shirkun saxaafadda Banaanroog oo hay'adda iyo wada weeladeen madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen iyo madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle Mudane Maxamed Cabdi Waare iyo safiirka European Union fadhi Soomaaliya Ambassador Nicholas Berlanga iyo safiirka Sweden Ambassador Shafana Tilander mayon ku wada hadleen xoojinta amniga lamada dowlad goboleed kobcinta dhaqaale wal hasaarowka fatahaadiyada webiyada iyo waliba barakacyaalka sida soo kaleednayba safiirada iyo ballan qaadana antiyo wal ku qoobado doonaan horumarinta mashaariicda sidii lamada dowlad goboleed iyo degdegayo ka hela lahaayeen shirjaraaydo iyo wada jiraayeen goboleed mas'uuliyiinta iyo maybayon ku hadaleena waliyaaboga shirkayon ku hadaleen maynan kooreyntii warbaahinta dowladda Koonfur Galbeed la hadalay madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen oo sabaydaba ka qaabili wafdiga maynu sugu hadalay waliyaaboga shirkayon ku hadaleen labada dowlad goboleed oo ay kaalmeynayso oo ay xoojinayaan EU-da oo arrimo badan aan uga hadalnay aan ku qabanay degmada Baydhabo xarunta ku meel gaarka ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ayadoo ay nagala soo qayb galeen safiirka EU-da iyo safiirka Sweden oo uga hadlaynay arrimo badan oo qoseeyo dowlad goboleedka Koonfur Galbeed iyo dowlad goboleedka Hirshabelle arrimahaas oo kamid ah amniga iyo dib u heshiisiinta sidii loo heli lahaa labada dowlad goboleed ay u heli lahaayeen amni iyo dib u heshiisiin oo la isuguna furi lahaa wadooyinka dadka labada dowlad goboleedna ay u heli lahaayeen xuquuqda amni oo asaasiga ah ay leeyihiin waxaan kaloo ka wada hadalnay kobcinta dhaqaalaha iyo wax soo saarka sida beeraha xoolaha kalluumaysiga sidii loo horumarin lahaa ayagana oo dadka xoololeyda ahna ay u heli lahaayeen xoolahooda sidii loogu horumarin lahaa beeraha iyo wax soo saarkina loo xoojin lahaa waxaan kaloo ka wada hadalnay kaabayaasha dhaqaalaha sidii loo furi lahaa wadooyinka loo samayn lahaa business iyo dhaqaalo dadka Hirshabelle iyo Koonfur Galbeed ay dhaqaalahooda uu ku soo kabto waxaan kaloo ka wada hadalnay arinta fatahaadaha wabiyada oo ah in soo noqnoqotay muddo dheer ku soo noqonaysay deegaanadan Shabeelle sida Hirshabelle iyo Koonfur Galbeed in xal waara loo helo fatahaadaha xal waara loo helo wabiyada biyaha ay keenayaan in xal waara loo helo yaan ka wada hadalnay waxaan kaloo ka wada hadalnay sidii dadka barakacayaasha ayagana loogu heli lahaa xal waaro sidaas oo kale waxaan ka wada hadalnay oon ka heshiinay in xal loo helo dhismaha maamulada hoos u daadejinta golaha deegaanka in deegaanada dhismaha golihii deegaanka hoos loo daadajiyo degmooyinka dhan loo suubiyo golo deegaan oo ay shacabka leeyihiin oo degmo kasta aan gaarsiino intaba waa ku heshiinay si fiican uuna ku dhammaaday shirki waxayna ballan qaaday EU-da iyo dowladda Sweden inay maalgelin ku sameeyaan intaasoo mashaariic ah madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle Mudane Maxamed Cabdi Waare oo dhinajay warbaahinta la hadalay iyo maybowsan mahadnagay madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed sida walaalnimo u saan ka dhawaay magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel deerka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed maynu isku hadalay muhiimadda shirka iyo faa'iidada yeelata bulshada lamada dowlad goboleed Hirshabelle iyo Koonfur Galbeed shirkungeek iyo weeladeen European Union madaxweynaha dowlad goboleedka soo Koonfur Galbeed oo runtii si fiican aniga wafdigay ugu soo dhaweeyay waxa kale oo mahad celinayaa safiirada EU iyo Sweden oo runtii shirkan qabashadiisa iyo dhaqangalkiisa qayb weyn ka qaatay sida madaxweynuhu uu sheegay arrimaha aan ka wada hadalnay oo xagga amniga dib u heshiisiinta sareynta sharciga oo ay kamid yihiin cadaaladda iyo booliiska wax ka qabashada arrimaha dhaqaalaha beeraha iyo xoolaha kalluumaysiga iyo horumarinta ganacsiga iyo inaan dadka laga mataqaana tabarta daran dadka soo qaxay dadka displacedka ama mataqaana barakacayaasha dadka soo noqday inaan ayagana laga tagin oo safety net loo sameeyo runtii shirkaas muxuu ahay oo runtii aad arrimahaas loogu falanqeeyay si guul ayuu ku dhamaaday dooxadan webiga Shabeelle oo maro oo runtii ah dhaqaalaha Soomaaliya meesha ugu muhiimsan una ah saldhigga cashuurta hadda dowladda federaalka ay ku socoto haddii la xoojiyo oo dhaqaalaheeda waxa laga qabto oo muxuu ahay ganacsigeeda la horumariyo waxay qayb weyn ka tahay dowladnimada iyo xoojinta
horsocodka Soomaaliyeed runtii arrimahaasna waa la isla qiray waa la isla qeexay waxaan qaadi doonaa tilaabooyin wax ku oola oo lagu xoojinayo horumarka dhaqaalaha ee dooxadan labadan maamul goboleed iyo gobolka Banaadir. Safiirka European Union aan fadhi Soomaaliya Ambassador Nicholas Berlanga iyo safiirka Sweden Ambassador Shafana ayaa dhinaca mayo sheegeen antikan safiirhan iyo wal ku qabado doonaan baahiyo ku jira dawlad goboleedyada Hirshabelle iyo Koonfur Galbeed. To show in another way how important dialogue and contact among the different leaders could be essential for all the challenges that we are facing in Somalia in 2020. Beyond development and beyond cooperation, there was also some exchanges about... We have flooding almost every year and droughts almost every other year. Harnessing the rivers and using them in a positive sense must be the key to the future. And this cooperation between two states like Hirshabelle. Faisal Maxamed Isaaq, warbaahinta dawladda Koonfur Galbeed, Baydhabo.